بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال halkani waa TV-ga caalamiga Universal waxaanu ku sugannahay caasimada wadanka Finland Helsinki waxaanu marti u nahay ururka dhaqanka iyo sportiga ee dalka Finland waa markii labaad ee aan ku soo laabano sanadkan waxa ka jira barnaamijyo aad u fara badan oo dhinaca sportiga ah marka su'aasha ugu horeysa ee debate-ka waxay noqonaysaa saan la socono dawlad cusub ayaa ka dhalatay wadanka Soomaaliya bahda sportiga qurba joogta gacan ma siin kartaa dib u dhisidda sportiga Soomaaliyeed xilligan aan ku jirno su'aasha ugu horeysa waxaan weydiinayaa saan hore ugu sheegay waxaan soo xilnay laba dhinac waxaan ka soo xulnay shan shakhsi oo ka socda waqooyiga London iyo shan kale oo ka socda magaalada Helsinki marka waxaan ku bilaabaynaa martida ayaan ku bilaabaynaa waxaan la joogaa ciyaaryahankii weynaa ee Jenyo Mr Ahmed Hirsi Abdulle oo loo yaqaan Ahmed Bile dawladda ayaa dhalatay markii ugu horeysay Soomaaliya 20 sano waqti ka badan sportiga Soomaaliya waxaan aragnay maalmihii ugu dambeeyay in la yiri askartii Ugandeska ha ee istaadi Muqdisho ku jira ka baxa bahda sportiga ee ku nool qurbaha gacan ma siin karaan dib u dhisidda sportiga sidii lagu yaqaan waagii ay ciyaar jirteen Ahmed Bile waa su'aal baaxad leh waxaan u baahan tahay waxaan qabaa shakhsiyan markuu wadanka hagaago ayaa sportiga la horumarin karaa marka waa in dawladda loo helaa dadka qurba joogta ah waxaan aaminsanahay haddii gacan weyn ka geystaan in wadanka dawladda ay kaalmeeyaan macnawi iyo maartay muxuu ahaa iyo dhaqaalaba wadanka hadduu istaago dawladdu waxay awood u helaysaa inay marka wax ka qabato laakiin sidoo hadda ku socdo oo hadda sportigu yahay sportigu wuxuu u baahan yahay basically in sidaan qabo asaaskiisa saddex shay inuu helo maamul hagaagsan maamulka hagaagsan dawladdu way ka soo galaysaa in dawladda maamul hagaagsan u samayso in ay hesho dad aqoon leh ama tababar ha noqoto ama maamul ha noqdaan oo aqoon u leh waxay qabanayaan iyo dhaqaale oo hadda dunidan joogna waa horumaray waxaa moodaa inuu u baahan yahay sportiga dhaqaale markuu dhaqaale sportigu horumaraya laakiin saddexdaas shay hadda mid maqan tahay waa iska habacsanaan waxayna qaadanaysaa waqti badan laakiin waxaan aaminsanahay saddexdaas shay waxaa ka horeeya inay dawladda hesho dawladda istaagto dawladda laftarkeeda dadka qurba joogta ah waxaa looga baahan yahay inay kaalmeeyaan ay ku daraan waxay qaban karaan laakiin sidaan ognahay dadka qurba joogta ee maanta Muqdisho galaya ama tagaya in laftarkooda wax inay dib u keenaan mooyee muxuu ahaa wanaag iyo wadanka Kenya iyo xumaanta inay badan ama isla agtahay ama dib badan ay Keenayaan marka in ay gacanta ay ka daayaan ay iska dhaafaan ay u daayaan dadka wadanka jooga ama ay wax ka qabtaan xaq macnawi iyo aqoontooda ay gudbiyaan saasaan qabaa aniga shakhsiyan
ومقشين رأيي أحمد حرسي عبد الله أحمد بلع عياريهانكي باسكت جاي وحن صاهر ذي كوشنا مرتون هاي أوركا دقنكا سبورتيكا هلسنكي أحمد أمت أيا إمك وحن دونيا أحمد عبد الله محمود أيان دونيا يسجن إنه رئيس بالكديبتو سؤاشي أن ويدي أحمد بلع. الرحيم مركو رسول وسلام يا سؤاشا ويدي سنة horta isboortiga Soomaaliya wuxuu aad ugu horumari karaa iyadoo la helo dawlad haddaysan dawlad jirin isboortigii sida hadda uu marayo isqaqabsiga tirada badan waxa way uu sii soconaa marka dawladdan waxaan ka rajaynaynaa inay nin wanaagsan oo maaragtay oo isboortiga Soomaaliya kor u qaaday wasiir looga dhigaan xiriiradana ay wanaajiyaan marka waxaan sugaynaa hadda insha Allah in dawladdan maaragtay wanaag badan ay diyaariso garoomadana ay dhisto si horumar loogu sameeyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu barkawaad marka labaad waxaan aaminsanahay haddaan khaldanayn su-aashaada waxay ahayd maadaama hadda ay dawladdu dhalatay sidee loo horumarin karaa isboortiga Soomaaliyeed soo waxaan aaminsanahay horta shacabka Soomaaliyeed qurba joogga ama dadka isboortiga qurba joogga iyadoo dawladdu saan hadda way dhalatay waa dawlad aan ku meel gaar ahayn baad dhalatay iyadoo ku meel gaar ay jirto ama ay dawladdu jireen inay horumar ka sameyn jireen marka ani fikir ahaan waxaan aaminsanahay xaqiiqdiina ah in sportiga dadka qurba joogga ay sii qaban doonaan wax wanaagsan laakiin muhiimku ay tahay maamul wanaagsan oo wasaaradda sportiga oo la shaqeyn kara inay dhalato daawadalkaasi wuxuu ahaa Mr. Faisal Farax Makaraan oo ah gudoomiyaha ururka weyn ee Suki oo ka dhisan wadanka Sweden isla markaana xubin ka ah guddiga Olimbikada qaranka Soomaaliyeed marka su'aasha ku xigta su'aalaha aad ay u fara badan yihiin waqtigana waa yar yahay su'aasha ku xigta ayaan gudbaynaa ururka aan martida u nahay ee dhalinyarada dhaqanka iyo sportiga ee ka dhisan magaalada Helsinki waxa lagu yaqaanaa inay la shaqeeyaan ururo aad u fara badan oo ka dhisan wadanka gudihiisa iyo dibaddiisa tusaale ahaan haddaan soo qaadano waqti dhow waxay alaabo aad u fara badan u gudbiyeen koox kubadda cagta ah oo ka dhisan wadanka Soomaaliya qaasatan magaalada Gaalkacyo kooxdaas oo la yiraahdo Comset marka ku dayasho noocaas oo kale ama la sameyn karaa sidaas lagu sameyn karaa su'aashaas waxaan u gudbinayaa gudoomiye ku-xigeenka Mr. Qoje marsa soo marka hore waad mahadsan tahay marka xiga Cosmet kaliya maaha waxaa jirta dawladda hoose oo tog dheer oo iyadana naadi macnaha sanadkan qalab la siiyay Cosmet media ayay ku soo bandhigtay macnaha waxaan u maleynaa tog dheer wali media kuma soo bandhigin saas la aligeed maada arkinaa tog dheer qalabkii aan u geenay Cosmet ciyaaraha aan qabano ayay waxay ka arkeen page annaga aan leenahay goolka la yiraahdo meesha ka daawadeen wayna la soo xiriireen waxay koox baanayna dhalinyaro ah Cosmet la yiraahdo wax ma noo qaban kartaan aniga iyo gudoomiyaha Aymad waxaan isla afgaranay anagoo la shirnay macnaha dhammaan madaxda ururkeena oo dhan inaan macnaha labada gobolka macnaha tog dheer iyo mudug dhalinyarada ka dhisan aan wax wada qabano qalabkii sanadkan aan geenanay gudoomiyaha isla socono Dubai joogna ayaan qalabkii halka ka iibinay waana ku wareejinay qalabka waxaan aaminsanahay aniga kulay ururada iyo dhammaan xiriirada macnaha shakhsi ayaa lagu caawin karaa macnaha kooxaha Soomaaliya ka dhisan inay qolo walba macnaha qoladii ururo leh ama macnaha shakhsi ah inay wax u qabtaan waxaan aaminsanahay in isboortigu uu ahayn siyaasad dawladda baa marta dhan ka dhawaajinaysan isboorti dawladdu wax kama qaban karto maadaama way kabi kartaa un xiriiraha jira xiriiradaas ayay dawladda taageeri kartaa laakiin isboortiga siyaasadda waa ka madax bannaan yahay su-aashan waxaan doonayaa inaan weydiiyo ciyaaryahankii kooxda Waxool Cabdi Fitig waxaan filayaa isbedel weyn inuu ka dhacayo wadanka hadda sidaan ku aragno ma laga yaabaa kooxihii barisamaadkii waqtigii idinka ay ciyaar jirteen kuwa la mid inay soo noqdaan tabcan Soomaaliya hadda koox ayaa ka jira laakiin tayadooda ma ahan kuwii la yaqaanay waqtiga ay ciyaar jirteen ma laga yaabaa mustaqbalka inaan arki doono Waxool Jeenyo gaadiidka madbacadda horseed iyo kooxihii kale ee ka jiray Soomaaliya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز ما هذا ما أنتي سمحوا سنة سبحان قدرك مثل بعدنا وحوا سنة قدوميها نعمة عمر البا اسكت على جي سي سبورتك لور مرنا مثل بعد وحاكلوا ما تسكله تي في يونيفرسال مصر زولا وفاقدات عيارة عمر البا اسكت على جي أسكنزي الدوم هنا للسعودية السعودان هذا وصلنا سؤال شيء هذا أنا كم حنقبا
marka ugu horeysa horta dowladda oon hagaagin inaan wax walba hagaagin sababtoo nabaddii iyo nabadgelyadii iyo wax walbaba waxay hoos imaanayaan dowladda markay dowladda nabadgelyadii iyo wax walba keento wax walba waa fududaanayaan marka ha loo duceeyaan leeyahay marka ugu horeeya dowladda calooshana ha loo furo kadib wax walba waa soo noqonayaan insha allah waa hagaagayaan su-aashan waxaan doonayaa inaan weydiiyo Mr. Cabdicasiis Goodax Barre waa xiriirka kubadda kolayga Soomaaliyeed gudoomiye ku-xigeenka farsamada iyo arrimaha dibadda Mr. Goodax waxaan filayaa xilligii kuleelaha ciyaarihii samarka London ka dhacay inaan shaqo volunteer aan isla qabanay oo Olympic aan la shaqeynay waxyaalo badan ayaa iska jira qaasatan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga guddiga Olympicada qaranka Soomaaliyeed marka xogaa waxaan doonayaa dadweynaha ku daawanaya caawa bal noo kala dhigdhig noo fasir qaabka u shaqeeyo sababtoo ah sidaa u shaqaysaan qofka idin xukumo meesha ku socotaan waxaad qabataan qof ogmale waa idinku wareeray marka waxaan doonaynaa inaad noo sheegtaan qaabkiina si qof walba u ogaado sababtoo ah dhinaca kubadda kolayga Soomaaliya dhinaca maamulka cid kaaga dhow male marka adoo sida daacadda ah lagu yaqaano bal caawa noo kala dhigdhig بسم الله الحمد لله marka ugu horeysa waa idin wada salaamaya dhamaantiin marka labaadna waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo dhamaan inta maaragtay caawa ka soo qayb gashay barnaamijkan martida waan soo dhaweynayaa oo London nooga timid qaasatan North London anaga wax weyn ay noo tahay aniga shakhsi ahaan Cabdicasiis ahaan waa ka xumahay inaan sidaa noo soo dhaweysan aan idin soo dhaweyn waaye laakiin saaxiibaday ururkeena oo dhaqanka iyo sportiga Finland oo halkan jooga oo annagaba aan ka xubin ka nahay si fiican ay idin soo dhaweeyeen waana uga mahad celinaynaa arrintaas ayagaana wada matalay tan labaad markaan aan intaanan su-aasha jawaabteeda gelin waxaan rabaa Zolo Cabdinaasir adiga wax badan baa lagaaga mahad celiyo lagu yiraahdaa TV-ga waa mahadsantahay haddana mararka qaar way dhacdaa waa mahadsantahaydii qofkii dhahay inuu biritola haddana intuu yimaado dagaal iyo buuq aad gashid dabcan arrinta Olympicada aan ka wada shaqeynay iyo waxaasoo dhan waa sax waa arrin jirto shaqo culus aan qabanay ilaahay dartiis ayaan u qabanay waa ku guuleysanay muddadan meesha joognay si fiican ayay noogu hirgashay tan hadda aad weydiisay haddii aan usoo noqdo marka jawaabta xiriirka kubadda kolayga iyo arrimihiisa iyo wixiisa xiriirka kubadda kolayga aniga waxaan kusoo biiray muddo hadda laga joogo dhowr iyo 10 sano gudoomiye ku-xigeen ka soo ahaa xilligii aadan xaajiye warowish Allah u naxariistay xiriirka kubadda kolayga oo gudoomiyaha ka ahaa aniga gudoomiye ku-xigeen ayaan ka ahaa weli gudoomiye ku-xigeenka arrimaha dibadda ayaan ahaa farsamada ayaan ahaa horumarinta ayaan ahaa intaas oo dhan waa soo maray xulal badan oo qaran waa ka qayb qaatay diyaarintooda iyo waxooda oo dhan xiriirka waa run sidaa sheegaysa jahwareer inuu ku yimaado oo dadka ay fahmi waayaan meesha loo socdo in la fahmi waayo in Universal TV dad intay tagaan ka hadlaan wax la sheego wax la kala la sheego laakiin caawa waxaan rabaa xaqiiqda waxay tahay inaan dadku u sheegno xiriirka waxa uu leeyahay gudoomiye Romba ayaa gudoomiye u ah arrimaha farsamada iyo maxaa la yiraahdaa iyo dibaddana anaa mas'uul ka ah muddadaas dhan anaa mas'uul ka soo ahaa iyo wiish markuu joogay ilaa iyo hadda dabcan xilli waxaa jirta xilli adagoona soo maray oo niman dhalinyaro oo rabay inay shaqo qabtaan oo sportiga qaranka Soomaaliya u soo ciyaaray shaqooyin badan u soo qabtaa jiray Allah u naxariisto Cumraan Yeelo ninaan saaxiibo ahayn rabay inuu sportigan iyo xiriirka kubadda kolayga inuu horumariyo dabcan Cumraan Yeelo markuu noo yimid shaqo badan ay qabteen horumaray suubiyeen raalli ahaada wax yar waxaan rabaa in la fahmo hawsha waxaan meesha ay ka jiraan inay dad badan fahmaan Cumraan Yeelo marka Allah u naxariisto wuxuu noo keenay shakhsi ayuu noo keenay shakhsigaas dabcan sportiga aniga waa igu cusbaa laakiin asaa noo sharaxay oo yiri qof wax ka qaban karo ayaan hayaa oo idila shaqeyn karo dabcan waa nagu soo biiray shakhsigaas way wada waxaan ka dhignay macallin ku-xigeenka xulka qaranka qaab kale oo xiriirka uu ku soo gala ma jirin dacwa nooga timid ciyaartoydii hore qaranka waxaa nooga yimid Canada dacwa nooga timid Ingiriiska dacwa nooga timid meel walba say ku dhici kartaa ilaa heerkaas in qof la gaarsiiyo
annaga marka waxaan u garanay oo annaga heerkaas aan dadka u gaarsiinayna wax kale ma ahayn ujeeddada waxay ahayd keliya horumar iyo in la gaaro xiriirka inuu tallaab hore wax u tallaabsado laakiin markay dhammaatay arrintaas 2007 cumar anyaale iyo qofkaas waa xogayihii hore xiriirka kubadda kolayga waxay noogu yimaadaan magaalada Helsinki anoo ahaa gudoomiye ku-xigeenka farsamada iyo horumarinta ayaan waxaan gartay in loo magacaabo gudoomiye ku-xigeenka horumarinta si arrinta xulka qaranka buuqiisi wixiisa u yaraato allahu naxariista aadan xaaji yoro wiish waa dhintay hadda ma dhihi karno marqaati ayuu ka noqon karaa arrintaas iyo waxaas laakiin dokumentiga ayaan hayaa iyo wax walbo sida dadkaas loogu magacaabay kadib arrintii way socotay wiish ayaa waxaa loo magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha guddiga olombikada soomaaliyeed rombana inuu yimaado gudoomiyaha maxaa la yidhaahdaa xiriirka kubadda kolayga annagana maamulkeena intii kale waa lasoo doortay xogayihii hore waxaa loo soo doortay xogayaha guud inuu noqdo dabcan khilaaf iyo waxyaabo baa dhacay lacago ciyaar la aadi lahaa qalad farsamay ahayd maamulka oo aadan waxba ka aqoonin axmed bila allah khayr allaha siiyo saddexda shay oo sheega mid ka mida waay haddii aadan maamulka aadan aqoonin dabcan ma geli kartid maxaa la yiraahdaa hawsha ma taqaanid sida loo wado haddaadan dhaqaale haysan wax ma horumarin kartid marka maamulkii oo qaldama daraadiis ayaa waxay dhacday guddiga olombikada soomaaliyeed ayaga waxay ku xiran yihiin hay-ado badan sida olympic solidarity waxay bixisaa dhaqaalaha xiriir walbo uu maaragtay ku taga meelaha ama waxyaabaha ay rabaan inay ku qabsadaan tusaale aniga Djibouti markaan tagayno tababarkaan qabanayna basketballka oo kale Olympic Solidarity anaga bixis xiriir kubadda kolayga lacag ma lahayn meeshaan tagnay 35 macallin ayaan soo saarnay inay wax baraan marka Olympic Solidarity qaladaad dhacay oo farsamo oo qofkaas uusan aqoonin ayaa waxay ku dhacday in guddiga Olympicada Soomaaliyeed buuq iyo caytin iyo balaayo la gaarsiiyo ilaa ay gaartay arrintii fadeexa ay gaarto Universal TV ay timaado dokumentiya la keeno annaga waan ka caroonay arrintaas guddiga fulinta way ka shireen go'aan waxaan qaadanay xogayahaas inuusan mar dambe shaqaynin xogayo cusubna la magacaabo way dhacdaa arrintii xogayihii waa laga qaaday laakiin arrintii buuqi wuu sii socday wuxuu gaaray ilaa afrika uu gaaray africa zone 5 kay gaartay waxay gaartay maxaa la yiraahdaa afrikada weyn waxay gaartay African Basketball Federation kay gaartay على كل حال وحنا دن وحن ربا أن أشيء وجد كلام أها بوقي حرير كوبادة كوليجا جوديه سمانته مجرو ما أنتوا وحن لنا قدومية حقيقة جودان لنا هاي قدومي كحجينا لنا هاي قد فلنا لنا هاي حرير هذا وين سواد أقوليهين حرير كسف عن أشقيا جوديه سواد شقين في عن أيا كجرته وحن أسعنا وحن أسعنا محلي هذا تنزانيا أسعنا عياران كقيب قلي دونا ديسمبر ويلي قبلنا هو قيب قلينا قولة أيام كنا قدر أيام قولة كنا وحاسو دن بوقي مركو نجا دح بحي أيا وحلا جار هيركس لكن بوق لبعض أيام نهايستو أفريقيا دي أيا بوق نجا هايستا حقهي هوري ويلي آمنسين قف كستو أدينك إذا كميدا حدا هدي أو قلبيج كأفريقيا باسكتبول فيدريشن كحقهيها عصو مجعي سكوما قرن ويلي وحكو قرن حقهي هوري لندن عبد الناصر وانا لجوج أنا قلنا نفتقنا وحن شركو يالنا زون 5 أو ماشي يمت أنا جوا وذا فدي سنة وأنا وشجنا زون 5 كأيجا وصل سعودان حقيقي هراء وحن كنا ملا فدي سنين حقيقي هراء هنجي استاجو ميسكن أو نلا فدي ما فدي سن كره استاجو وأنا لقي استاجية ماشى والله وذا هذا زون 5 وين أقول هذا سوته أو حن هردقنا إن زون كنا بكبحنا أو أن زون 7 قلنا si uusan u imaanin ba corruption kan iyo waxyaabahan socdo xafladaha London lagu dhigayo lagu casumayo zone 5 iyo waxyaabahaas oo dhan si looga baxo waana ka baxna hadeertan zone 5 wayna ogolaadeen hadda waxaan u gudubnay afrikada kale bishan aan ku jirno hadda 23keeda waxaan ka qayb gali doonaa shirka maxaa la yiraahdaa Africa Congress-kooda oo ka dhici doona Qaahira waxaa ka qayb galaya hadduu Ilaahay yiraahdo aniga iyo waxaa ka qayb gali doona xogayaha guud dabcan dad kale oo ninkaas xogii hore iyo dad kale la casumo way jiraan ujeedada oo tageynana waxay tahay Afrika ama annageena aqoonsanaysaa oo ay ogolaanaysaa inaan nahay xiriirka dadka u shaqeeyo ma rabna annaga Soomaali in la kala qaado ma rabna Soomaali in wax lagu suubiyo laakiin ujeedadeena waxay tahay targetkeena wuxuu yahay Soomaali inaan mid ka dhigno horumarna gaarsiin guddiga Olombikada Soomaaliyeed aniga guddigiisa fulinta aan ku jirana wax qabadkeena waxa kamid ah
maamul fiican inaan dhisno oo wanaagsan oo horumar leh ujeedadiisana ay tahay hadda olombikada markii ay qaab wax shaqadeeda wax kale ma aha hadda waxaa laga dhawaajiyey dowladda inay wax maamul iyo ka shaqaysay isboortiga dowladda iyo markaan kala qaadno olombikada iyo dowladda waxay qaabilsan tahay facilitieska inay fududayso dhismaha meelihii lagu cayaari lahaa garoomadii waxyaabaha lamida olombikadana shaqadeeda waxay tahay inay soo saarto ciyaari kooxi xiriirada inay dhisto maamul wanaagsan inay suubiso maamulka inay dhisaan waxyaabahaas inay suubiyaan xeerkeena ku caddahayba oo iska qabsiga hore wasaaradihii hore dad badanoo waxaan aan idiin sheegaya waxaan hadda aan kasoo sheegin buuqaas dad badanaa wada watay oo arrintan oo dhan ay ku group dhan oo wada socday ahayn oo wasiirro iyo wasiir ku-xigeen wax walba wada wata laakiin annaga ujeedadeena waxay ahayd keliya xiriiraan nahay xiriirka sharci iyo nidaam uu ku dhisan yahay nidaamkan ku dhisan nahayna waa qaanuunka oo FIBA basketball federationka adduunka uu ku dhisan yahay nidaamkaasaana annagana kala haga haddii aan nahay xiriirka iyo haddii aan nahay olympic iyo wasaaradda haddii aan nahay marka intaasaan kusoo gabagabeynaya daawadayaal waxaad maqlayseen ereyadii ka soo baxay Mr. Cabdicasiis Goodax Bare aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis sida la socotaan waxaa ka yimid waqooyiga magaalada London bahda sportiga oo isugu jiray basket iyo kubadda cagta iyagoo soo weheliyay ciyaaryahanka Soomaaliyeed ee Banaadir Telecom iyo qaranka Mr. Cabdulqaadir Mooge oo yimid magaalada Helsinki marka waxaan doonayaa inaan weydiiyo Mooge dhalinyarada sportiga ee qurba joogta ah ee dadweynaha kala jooga isdhexgalkooda kuwa Soomaalida ah markay ka soo tagaan wadan kale yimaadaan maxaa ka soo bixi karaya isleedahay adiga waayo dadkii asxaabta aad aheedeen ee North London oo ay ku jirto University TV qaasatan faaqadaada ciyaaraha safar dheer ay kula soo galeen shaqooyinka ayaa laga soo tagay fasax ayaa la soo qaatay si lagu soo raaco sababtoo ah waxa tahay nin asxaabta dadka ay aad uga jecel yihiin qaasatan magaalada London qof kasta oo ku soo raacay halkan ayaa la yimid marka isdhexgalka dhalinyarada maxaa ka soo baxa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال أنت أنا أقول مرة هنا أمهات عليه بعض اسكدون فنلان قدومية إمد يقاجي أصحابتك الله شقيسي مرلوات يونيفرسال تي في أيضا نوه ليسو مرتشارف كلا أقصى قبش وما سنتي مركو جوريس محمد جوري أو نوع زومي ماشان قروح البلد haddii aan u soo noqdo su-aashaada laahi horta wax fiican aa ka soo baxayo isdhexgalka bulshada haddii aad ka tagto meel kale aad tagto hadda alxamdulilah maanta waxaa noo jooga meeshaan dad badan oo aad u fara badan waxaa keenay isboorti manii siyaasad manii qabiil waxma aan u soconno malaha waxaan u soconnaa sportis marka hadda markii aan nimid meeshaan waxaa ka soo baxay inay dad badan isbartaan dad badan oo aan 20 sano is arkaan sida faaqid iyo cabdi caagan oo kale waxay ugu dambeysay malaha 20 sano ka hor marka ayadana muhiim waaye in macnaha isboortiga saas loo xubin markii ay London yimaadeen ayadana waa aragtay asxaab badan oo muddo aan is arkeen meeshii waxay dhalisay sanad walba sanadka ka dambeeyay inay wixii sii xoogaystaan ee ka abuurmaan isjacayl saaxiibtinimo walaaltinimo iyo dareen kale ka dhashay meesha oo ku saabsan saaxiibtinimada iyo walaaltinimada marka waxaan u maleynayaa in haddii la sii wado laga bixi doono dhibaatada yar oo hadda ka jirta Soomaalida dhexdeeda waa sii yaraanaysaa sanadka hadda 5 sano ugu dambeysay markaa fiiriso dhinaca sportiga markii maamulka laga reebo laakiin dhalinyaradii isdhexgalka bulshada aad u sii xoogaysanaya حتى هذا السياسة الصومالية حتى وحكوا جرت قيب إن سبورتي آد لو حوجي سي لأن يرد يسلحق الكود يو آد وجبته سي مركز واحدا ويفضانا يعني مرك أنت سان كده حلنا هذا يوم هاي مستر عبد القادر موجي ريرونتي آد مهمة أيوة كده واجي سأقول الله سعتان وحنا نجوا عياريهن فنان وين وصومالي الله يقانو مستر هنا فنانينتا هذه ما أنت وحنا رنتي بورتيري وح هاد عجيب أهو مكافرين ما أنت رنتي هدي سلوا فيري سياسة هلا قتكو
meesha keliya ee soomaali weli aan ku kala helin waa fanka iyo isboortiga maxaa ka dhihi lahaa arrintaas بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتها هرتا مركو غوريسو فنكي سبورتيغا هدان كهادلو فنكي سبورتيغا ومتانو ان لكل ريبي كرين سبورتيغا وفن فنكنا وسبورتس marka fursadan universal nasiisi waxaan aad ugu hambalyeynaa horta universal teeda kale waxaan leeyahay inta adduunweynaha ku nool inta Soomaali ku nool oo fanaan sheegto waa salaamantiin waxaan aan ka faa'iideysanahay fursadan inaan ku salaamo walaalkayga iga weyn aan caab rabo inaan inta ka xuso Scott Maye Abukar oo ciyaartooy weyn ahaa inaan ka salaamo halkan iyo wixii sport sheegto waan mahadsantahay faysal faarax makaraan sanadkan waxaa lagu doortay gudoomiyaha suki sanad walba waxaa samaysan doorasho oo dimuqraasi ayaa samaysan waxaana saan kaaga jeedno waxaa kugu dhegan inaad xubin ka tahay guddiga olimbikada qaranka Soomaaliyeed aadna runtii aad ugu faraxsan tahay saan kugu ogahay marka ururkiina waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay ururka isboortiga ugu weyn ee Soomaalida qurbaha heerkaasay ku gaarteen iyo maxaa mustaqbalkiina horta waxaan ururka Zuki waa urur magacyo ereyo la soo gaabiyey ah oo ah Soomaaliska Swedish aan ku sheegay markii dambe Soomaali ku sheegi doonaa waa ururka dhalinyarada Soomaaliyeed qurba jooga sportska iyo dhaqanka waa Soomaaliska Europeiska ungdom kultuur og idrot waa ereyo la soo gaabiyey ururka xaqiiqdii waa urur ka mid ah ururada ka jira qurbaha urur u taagan mar walba inuu horumarinta sportka Soomaaliyeed la tashiga shakhsi walba oo danaynaya horumarka Soomaaliyeed la dhaqanka ama xoojinta xiriirada san halkan caaw jooga oo aan u imid inaan la xoojino wada shaqaynta ka dhaxayn doonta anakii ururada ka dhisan Finland intaas badeer ayuu yahay ama uu sameeyaa insha Allah horumarkana waxaan rajaynaynaa wax wanaagsan inuu gaaro iyo horumar maanta kan taaganahay ka sii badan inuu gaaro waxaad ka dhawaajisay xagga doorashada ama gudoomiyaha sanad bina doorto xaqiiqda jirta ama dhulkan aan deganahay waxaan ka baranay habka loola dhaqmo ama ururada ay u dhaqmaan waxaa qasab ururku wuxuu ka kooban yahay guddi fulin iyo guddi odayaal ah oo haddii problem dhacay dib loogu soo laabto sida Axmed Bele buu ogsoon yahay maadaama asaga xubin ka yahan jeclaa ururka Zuki iyo guddiga marka saynan u imaanin sanad walba awood inuu shakhsi khaas ah uu isticmaalo awoodiisa ama fikirkiisa gooniya waxaan sameynaa sanad walba inay dhacdo doorasho markay ciyaaru dhamaadaan wixii ka dambe ilaa muddo 4 bilood ah guddiga odayaasha waxay ka soo shaqeeyaan shakhsigii noqon lahaa sanadka dambe iyagoo ka qaada waraysiyo iyagoo u fiirinaya kartidiisa iyagoo u fiirinaya waxqabadkiisa inuu u qalmo inuu noqon doono dabadeed ayuu shakhsiga u qalmo u noqdaa saasaana sanad walba ku dooranaa waana mahadsantihiin daawadayaal saa u aragtaan barnaamijka aad ayuu xiiso badan yahay waxaan weli ku sugannahay Helsinki aad ayay u qabowdahay laakiin waxaa si diiran noo soo dhaweeyey bahda isboortiga ee magaalada Helsinki waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal ayaamahan iska socota kulli waxaan filayaa rag Soomaali ka soo ciyaarayna halkan waa joogaan rag barisamaadkii rag dhalinyaro ah baasketball dhinac walba u jeed waxa la isku hayaa ciyaaryahankii Soomaali ugu fiicnaa waagii barisamaadkii waxaan filayaa Faysal Makaraan aad ayaa u yiraahdo ma xasuunan kartid marka ciyaaryahankii ugu fiicnaa wadanka Soomaali marka lama rabo wuxuu ka ciyaari jiray uundisho iyo sati lama rabo ama boortiyeeri ahaado ra'yigaaga footballka aniga aan dhihi lahaa basketballkana aniga meesha aniga ka ciyaaran jeclahay haddaan dhaho laakiin meel walba ka sheekay ma ogoli laakiin basketka aniga Cabdi Xalwaan aan u jeclaa basketka Soomaaliya aad ayaad u mahadsan tahay wallaahi ra'yigayga wuxuu yahay haddaan cabiro inkastoo aad u adag tahay in la cabiro ciyaartooydii ugu fiicneed aniga waxay tahay xagga kubadda cagta waxaa ugu fiicnaay
ra'yi ahaan markaan ilaa shiiqaalow basketka berisamaadkii haddaan aado waxaan u maleynayaa ciyaartooydii hore oo basketka ayaa wax ka xusi karaa. waxaan dhihi karaa waxaa ugu fiicnaay ama aan ra'yi ahaan qabaa ninka la yiraahdo nuuraddiin oo badda u dheeli jiray. waa mahadsantahay saadiq waxaan filayaa faysal makaran inaad isku daatihiin aadan xasuusnaan karin laakiin ra'yi ahaan adigu yay kula tahay labada ciyaaryahan dhinaca basketka xataa gabdhaha waa ku jiraan basketka iyo kubadda cagta. kubadda cagta aniga waxay ila tahay nin la yidhahdo Ibrahim Shaash basketkana intii aan kasoo gaaray aan ka daawaday nin sheekha la yidhaahdo badda u ciyaari jiray. asalaamu calaykum kulley su-aasha ay weydiisay waxaa fiicnaan lahayd horta inaad kala qaadid ma waxaad ka hadlaysaa 70-meeyadii mise 80-kii ilaa iyo dagaaladii waqtiga ay dhaceen waqtiga walba hadday tahay waqtigii hore aday 70-meeyadii ilaa iyo 80-kii laacibadii soo maray waddanka waxay ahaayeen ismaaciil gariile iyo saciid ducaale labadaas 80skii ilaa iyo dagaaladii intay dhaceen laacibka ugu fiicnaa aan laga hadli karin waa muriidi abunuur abati basketka hadday noqotana waxaan ku raacsanahay nuuraddiin oo ahaa laacib fiican. بسم الله الرحمن الرحيم وحلق مريدي صاحبكي فاقد سيد وكلا ساري يعني جعل حي يعني قبا يعني تضبات ميدي وحلق قبا اسماعيل قريلي iyo سعيد علي سيدي تمايد انه waxaan aniga ila tahay intaan ka xasuusto muriid abanur abati iyo sheekhalow basketballka toddobaad meeyadii waxaan isleeyahay ninka jeeyo ciyaar jiray ges sidii tameeyadiina waxaan aaminsanahay laacibka ugu fiican oo ahaa Nuurdiin Cali Saciid anikaas aan qaba gabdhahana waxaan aaminsanahay toddobaad meeyadii wariiri sidii tameeyadiina wuxuu ahaa Geedi Cali Abshir. aniga ra'yigayga waxaa waaye kubadda cagta muriid abati abanuur basketna sheeqa. والله أنا رأيي وحنا لقوا سيد لوضع التدوات ميدي إني لوضع سنهاين سعيد دعاري إيو جريلة إيو سديت ميدي إنه ها مريدي يشقالو باسكت كان والله قف بجس ولا عن أحمد اللي جرو هرسد اللي جري أحمد داهر إيو الشيخ لوضع سنبا ما شاء الله. ra'ligayga haddaan ka hadlo ciyaartooyda markaa aan soo qaban karo waa nuur gaab kubadda kollegana waxaan soo qaban karaa baarajab. بسم الله الرحمن الرحيم أنا waxaan is leeyahay maaragtay ciyaartooyda ugu fiicnaa Soomaaliya kubadda cagta xilligii Yuusuf Maxamed Shaqaaq iyo Sheekh basketkana Sheekh. waxaan u maleynayaa dad badan baa gadaal ka qosla maanta dhan baad igu dheganayd Cabdinaasiro. horta xaqiiqdii ma sidaan maqlay sidaan arkay waxaan ka hadli karaa oo kaliya ciyaartooyda ka dheelaysay Sweden iyo meelaha laakiin sidaan maqlay xaqiiqdii basketkan waxaan maqlay sheekha inuu laacib ahaa asoo Stockholm ku dheelayna waa arkay xaqiiqdii waa nin asaasiinaya footballkana kolley Nurgab asoo ciyaaray waa arkay Bashiir Jenyo waa laacib Stockholm degan asoo dheelay waa arkay عودنا sidoo kale macna عود saddexdaas baa wanaagsan ilaa بسم الله الرحمن الرحيم maadaama ciyaartooy laga hadlayo anigu waxaan aaminsanahay ciyaartooydii ugu wanaagsanaa dalka abid soo maray inay ahaayeen Cabdulla Nuur waa suge oo African bilad qaaday boodada sare ah iyo Cabdi Bila oo world champion ka qaaday iyo Jaamac Karaaciin oo ah ninkii furay inay Soomaalidu qaato bilad oo haatan ah tababaraha ugu wanaagsan tobanka tababaraha dunida ugu wanaagsan waxaan aaminsanahay inay saddexdaas ciyaartooy yihiin saddex ciyaartooy legendka ah Soomaaliya meel aysan gaarin weligood gaarsiiyay waana maasantiin. بسم الله الرحمن الرحيم أنا وقتي دنك باسكتبولك إن وحنديه كرا أبو كرشينا يا شيخة إن فوتبول كنا وحنا رنكرا إن اللي راه دائما كما دول يجري عبد الله عبدي يو مريد أبو نور أبتي. بسم الله الرحمن الرحيم horta su'aashan ودي سؤال هذا كويه Soomaaliya ciyaartooy badan oo legend ah soo martay
marka waa dooranaya haddaan dhaho ma kala dooran karo kulligood maxaan qabaa inay لاعبين fiican ahayn koox walba haddaan laba ka soo qaato horseedoo kale hadda waxaan ka soo qaadan karaa maxamed ismaaciil iyo scott jeyo nuur qaloocow bashiir jeyo munishib iyo nuur gaab iyo shikhalow madbacada muridi iyo enow kooxdeeda waxaa haddaan ka soo qaado muxudiin cambar khamiis iyo muxudiin jabaan nin la dhihi jiray iyo weliba boorteerigeen weynaa sacuudi saddexaan ka dhigaya kooxdeeda yaa ii soo haray gaadiidka nin baxeed la dhihi jiray iyo tababa weged jimcaale maxamed xaayow cali muuse asna weerarka ahaa isnaay wareejiyo nin la dhihi jiray iyo malaaqaas iyo gududow batroolka cabdulla quuq iyo mukhtaar cudi daawadayaal sidaa la socotaan ilaahay hadduu yidhaahdo sanadka soo socda ee 2013 waxaa dhici doona doorashooyinkii guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed oo lagu qaban doono magaalada muqdisho mise goodax waxaan u jeedaa qof walba oo aan isboortiga shaqo ku lahayn iyo kuwii shaqo ku lahaa kuwa hal maalin banooni ciyaaray kuwa hal maalin tv-ga laga arkay inay yireen waa soo sharxaynaa sababta la sharxay maxay tahay qaabka la sharxna maxay tahay doorashadu waa la soo sharaxi karaa qof kasta waa soo sharaxi karaa laakiin waxay ku xiran tahay dastuurka iyo xeerka guddiga olombikada soomaaliya in la akhriyaa ka fiican marka hore markaa guddoomiye isku soo sharaxaysid waa inuu xiriir ka mida xiriirada magacaaga gudbiyaa dhahaa cabdicasiis goodax ayaa annaga noo sharaxan guddoomiye marka hadduusan xiriirku soo gudbin inaad meediya ka hadashid inaad adduunka dhan tagtid iyo meel walbo ma isku sharaxi kartid waxaa ila tahay sharaxaadda waxaa ka horeyso xiriirada marka hore in maaragtay ay kusoo sharaxaan dabcan qof kastoo soomaaliya ama horumar iyo maamul iyo wax ka yaqaanana waa isku soo sharaxi karaa oo cid maaragtay hor istaagsan ma jirto in lala socdaa la rabaa 19 qofood ayaa codka iska leh guddiga olombikada soomaaliyeed 19kaas ayaa waxay u codeynaysaa guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenada iyo guddiga cusub oo la dooran doono marka intaas ayaan maaragtay kusoo gabagabaynaa bismi illaahi raxmaan raxiim horta waxaan aad u jeclaan lahaa inaan ka hadlo arrintan doorashada ah guddiga olombikada soomaaliyeed waa guddi ka shaqeynaya mas-uulka arrimaha isboortiga ee soomaaliya oo dhan saaxiibkay goodax wuxuu yidhi 19 qofood ayaa waxay matalaysaa awood u leh inay doorato marka waxaan weydiin lahaa yaa siiyey 19 qof legitimka iyagu legitim yaa u siiyey inay iyagu wax doortaan sababta waxaa weeyaan guddiyada olombikada adduunyada waayihii hore waxay u dhisnaayeen dowladaha dimuqraatiga ahna qaab baa loo dooran jiray dowladaha shuuciga ahna nomination bay ahaayeen waxaa soo magacaabis bay ahayd hadda annagu ma nomination baa oo iyaga nominaareynaya qofkay rabaan magacaabaayo oo awood siinaya inay wax doortaan mise waxaa jira waa ogsoontiin dowladdii waa ka madax bannaanay yidhaaheen oo dowladdii shaqo kuma lihin marka yaa iyaga siiye legitimka yaa dhisay bilaastarayaasha mataqaan isboortiga ee dalka way madax bannaanaanayaan macnay rabtaa laftirkeeda yay u madax bannaanaanayaan ma shaqadooda u madax bannaan yihiin ma doorashada u madax bannaan yihiin bis hooshaan cidu lama xisaabtamayso waxay rabaan ay ka sameynayaan marka madax bannaanidu laftirkeeda sharaxaad bay rabtaa ma hoosha tusaalahaan markaa kaga soo qaato shirkadda Somali Airlines waxay ahayd shirkad madax bannaan laakiin waxay ahayd shirkad dawli ah dowladda iska lahayd waxay hoos imaan jirtay wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka marka shirkadda waxay u madax bannaaneed hoosheeda laakiin waa shirkad dawli ah oo dowladda iska leh iyadaa dhisayso bilastriga shirkaddu ay ku dooranayso maamulkeeda gulaheeda maamulka marka Soomaaliya waxay ka mid tahay dunida saddexaad waa dunida horumartay maaha oo isboortigu ay ku yimaadaan dhaqaale badan xayisiimo garoomada waxaad aragteen Soomaaliya waa dowladaha dunida saddexaad ku taalo isboortigu waa aska dadka dowladda ayaa gacanta ku hayso iyadaa bixisa dhaqaalaha kama maarado malaayiin baa lagu bixiyaa wasaarado badan baa ka shaqeeya
wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka wasaaradda gaashaandhigga cayaartooyda ugu badanna waxay ka yimaadaan waxbarashada marka sidaas awgeed saaxiibka waxaa weydiinayaa guddiga kan yaa siiye legitimka bismillaah horta waxaa la rabaa marka hore inaan fahanno guddiga olombikada soomaaliyeed maxay yihiin guddiga olombikada soomaaliyeed waa xiriirada iyo ururada iyo zoonanka oo isku tegay ayaa waxaa la yidhaahdaa guddiga olombikada soomaaliyeed maamulka guddiga olombikada soomaaliyeed waxaa lagu doortaa waxaa doorto oo awood leh xiriirkii active waxaan ka wadaa xiriirka kubadda kolayga soomaaliyeed waa la yaqaanaa waa xiriir shaqeeyo oo cayaaro qabto oo maxaa la yidhaahdaa tartamo qabto marka waxaa loo ogolya xiriir kasta oo shaqeeyo waa xiriir kasta oo shaqeeyo cod ayuu leeyahay laakiin xiriirka baaskiilada cod ma laha annaga xiriirkaas ma shaqeeyo active ma aha xiriirka dabaasha cod ma laha active ma aha xiriirka cayaaraha fudud codow leeyahay waa active cayaaraha olombikada kasoo qayb galeen cayaaro kaley qabtaan waxyaabay qabtaan marka waxaan rabaa inaan sharaxo guddiga olombikada soomaaliyeed awood kuma haystaan ayaga awoodna ma laha ninka hadda guddoomiyaha ah iyo ninka ah maaragtay guddoomiye ku-xigeenka awood ma lehe awoodda waxaa iskale xiriirada iyo ururada active-ka ah marka waxaan rabaa inaan su-aasha jawaabta walaalkii aan meeshaas uga baxo daawadayaal mar walba waxaan isku dayaynaa dadweynaha ka soo qayb galay debateka ama wadahadalka sportiga inaan sino janis ay iyagu kaga jawaabaan su-aalaha ay isleeyihiin aad ay u xiiso badan yihiin bismillahi raxmaan raxiim aniga su-aashaydu waxay ku jeedaa mudane goodax oo hadda ka hadlay qaabku u dhisan yahay xiriirka olombikada aniga maadaama aan ahay xubin isboortiga oo weligiisa waayadiisu ay ahayd kubadda cagta waxaan rabaa xagga sharciga iyo awoodda ugu sarreysa isboortiga oo olombikada inaan wax ka ogaado midda qof kasta oo kubadda cayaara oo ogyahay waxa waaye guddoomiyaha xiriir kubadda cagta Somali Football Federation German waxaa doorta kooxaha doorta guddiga fulinta ama guddoomiyaasha kooxaha kubadda cagta ayaa nidaam ahaan doorta sidaasoo marka qofka ugu codka badan wuxuu noqdaa guddoomiyaha xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed laakiin aniga iyo dad badan oo bahda isboortiga oo meesha fadhida waxaa laga yaabaa inay wax fikrad buuxa aysan ka haysanin olombikada waxaan ognahay dad badan oo qurbaha jooga ayaa mas-uuliyiinka xiriirka olombikada Soomaaliyeed oo ah hay'adda ugu sarreysa isboortiga marka dadkaas qurbaha jooga oo u badan hogaaminta olombikada qaabka loo doortay iyo sida ay ku soo galeen iyo maaragtay mudnaanta ay yeesheen ayaan rabaa inaan ku ogaado oon walaalkii goodax weydiiyo waxaan raacin lahaa qaabka doorashada guddiga fulinta olombikada Soomaaliyeed inuu bal wax yar faahfaahin ku daro qaabka loo doorto wax yar buu ka xusay maasan tahay haddii aad fiirisid waa su-aal jawaabteeda ay ku taallo qofkii rabo uu ka fiirin karo web page-ka olombiga waxay leedahay olympic chart wuxuu caddaynayaa qodobadiisa waxaa ka mid ah in dowladdii ka mid naqanayso olombiga ay ka madax bannaan yahay olombikeedu dowladda waxay ka mid tahay waxyaabaha looga mid noqdo olombikada anigu ma ihi olombikada cid ka mid ah laakiin waxaan akhriyey olympic charter waxaana aad moodaa madax bannaanideeda waxa ay tahay habka ay isu doortaan ma aha wax ay haddii aan ka soo qaato olombika Soomaaliya ma aha wax ay iyaga qoondeeyaan oo kaliya waxay raacayaan xeerar loo dhigay ay olombikadu dhigtay olombikadu in ay ku fiiriso ay ku eegto ayay ahayd waa la dhihi karaa marmarka qaarkood xeerarkaas waa la jabiyey laakiin xeerar ay yaallo ay olombikadu qortay xeerarkaas ayaana lagu doortaa ayay tahay in lagu doorto tan dowladda roolkeeda waxay tahay even dadka ka mid ah olombikada in aysan jabin sharciyada u yaalla dowladda Soomaaliya ayna fiiriyaan ayna tusaan xisaab celin hataa xisaabta ay celinayaan dowladda Soomaaliya laakiin wasiirka Soomaaliya ee isboortiga xaq uma laha inuu magacaabo ninkii olombikada naqan lahaa ama xiriirada naqan lahaa marka intaas aan clarification-kaas gaarnaa Mr. Godax waxaan filayaa su'aashii lagu soo weydiiyey iyo engineerka clarification sameeyay isla markaa inaan si fiican u fahantay laakiin waxa la fahmi la yahay
waa la doortaa charter ayaa jira hadda waxaad ka dhawaajisay xogayihii hore xiriirka soomaaliyeed ee kubadda kolayga oo shaqadii laga eriyey nin la yidhaahdo baana cali oo ku nool magaalada london oo ilaa hadda a ka saari la-dihiin website-kii zone 5ka marka awooddiina maxay tahay maxaad samayn kartaan iyo ninka odayga su-aashuuna soo weydiin waa inaa waqti yarna waa haystaa ka jawaabtay awoodda olombikada iyo xiriirada waa maxaa la yidhaahdaa awooddooda aad bay u sarreysaa waa awood maaragtay xoog leh dabcan khayr allaasi injineerka qaabka u sharaxay waa sax waa sidaas 2009kii waan hayaa hadda fiidiyihii oo 2009kii oo dhan min bilow ilaa dhammaad aan hayaa maalintaa baxaysid insha allah waxaan jeclahay inaan magaalada intaan aado kuu keeno oo aad ka soo deysid maxaa la yidhaahdaa universal t v ayadoon wax laalaaba ku jirin oo wada duuban oo video ah dabcan cabdulaahi su-aashiisaan rabaa inaan ka jawaabo cabdulaahi asaa sharaxay xiriir kubadda kolayga waa yaqaanaa xiriir kubadda cagta waa yaqaanaa qaabkay u dhisan tahay waxaa soo doorta kooxahoo yiri cabdulaahi jawaab muu iga rabaa marka haddii aan dhahay xiriir kubadda cagta kubadda kolayga kubadda gacantana waxay doortaan olombikada marka intaas waa su-aasha jawaabteeda waa mahadsantaha cabdulaahi mr cabdixasiis goodax aad ayuu u mahadsan yahay runtii waxaan rabnay inta badan inaan ka hadalno sida quruxda badan ee loogu soo dhaweeyey mr cabdulqaadir mooge iyo bahda sportiga ee waqooyiga magaalada london cayaarihii ka dhacay iyo ururkan weyn ee dhallinyarada dhaqanka iyo sportiga oo mar walba isku daya inay qabtaan shaqooyin aad u weyn marka waxaa la soo gaaray gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijka ayaa la soo gaaray runtii waa ka xumahay sababta dad badan ayaa su-aal halkan u yaallay waxaan doonayaa microfoonka inaan siiyo guddoomiye emed si uu halkan ugu mahadceliyo dhammaan bahda sportiga ee london sweden helsinki iyo magaalooyinka waddanka finland iyo mr maxamed ibraahim gurey oo hoolkan caawnoo sharxay oo aad u mahadsan marka waxaan doonayaa inaan kusoo dhaweeyo guddoomiye emed aad ayaad u mahadsantahay waa mahadsan tahay cabdinaasir barnaamijkii maadaama uu gabagaba yahay waxaan halkan uga mahadcelinaynaa marti sharaftii noo timid ee magaalada london noogu timid north london oo ah guumow hogaaminaya saaxiibadeena horta aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waxaana tihiin dad walaaleen oo saaxiibadeena marka waan idinkaga mahadcelinaynaa casumaadii aad naga aqbasheen iyo maaragtay sidii aad noogu timaadeen waxaan kaloo mahad gaar u celinaynaa tv-ga universal iyo tv-yada kaloo nala joogo dhammaan iyo kooxdii koobka ku guulaystay dream teamka maadaama ay shaqa adag qabteen shaqadii soo dhaweyntii iyo shaqadii isboortiga ay isku dareen saaxiibkay qoojana waa ka xunnahay maadaama uu maaragtay kaalinta saddexaad uu galay marka waa mahadsantihiin mr gureyna waa mahadsan yahay daawadayaal aad ayuu mahadsan yahay guddoomiyaha saa la socotaan 3 cayaar ayaa dhacday hal cayaar waxaa cayaaray helsinki iyo waqooyiga london waxaana ku badiyey waqooyiga london goolal waxaa dhaliyay cayaaryahan weyn oo laga yaqaano waqooyiga magaalada london magaciisa ma doonay inaan idiin sheego cayaartii kale waxaa badiyey dream team marka waxay noqotay helsinki waxaa ka badisay waqooyiga londonna waxaa ka badisay helsinki marka sheekadu waxay u egtahay bareejo laakiin koobkii waxaan siinay laacibka weyn mr emed oo runtii ah shaksi ku dayasho mudan oo sportiga soomaaliyeed isaga iyo asxaabtiisa qooje iyo dhammaan reer helsinki ay qabteen runtii aad ayaan ugu faraxsanahay sababtoo ah xilligan aan ku sugannahay magaalada helsinki ma ahan waqti sporti ma ahan runtii haddii la fiiriyo sababtoo ah waxaa bilowday waqtigii winterka ayaa bilowday laakiin qof walba oo asxaabta cabdulqaadir mooge ka mid ah waxay qasab ku noqotay inuu shaqooyinkii iskuulaadkii fasaxo ka soo qaato si uu usoo raaco ninkan odayga saaxiibkeena weyn ee cabdulqaadir mooge inaan kaga soo qayb galno xafladahan weyn ee loogu sameeyey magaalada helsinki waxaan mahad u soo celinay aan ilaabi karin mr maxamed ibraahim gurey oo la-aantiis waxba aan socon lahayn mr maxamed ibraahim gurey wuxuu la shaqeeyaa dhallinyarada ku nool waddankan finland dhallinyarada waxyaabo aad u far badan ayay sameeyaan meeshan aan ku suganahay hoolkan madashan aan joogno waa markii labaad aan ku samayno marka debatekan waxaa loo bixiyey helsinki 2 ayaa loo bixiyey waxaan kaloo mahad u celinayaa mr maxamed muuse seraar
oo cameramanka ahaa waxaana editingka naga caawiyey Mr. Abukar oo habeenii maalin nala joogay waxaan la iloobi karin bahda sportiga ee magaalada Helsinki oo ugu horeeyo saaxiibkeena aan jecelnahay ciyaaryahankii weynaa ee waxool oo mar walba na garab taagan aad ayaad u maasan tahay Mr. Abdi Fitig waxaan kaloo mahad celinaa dhammaan dhalinyaradii ka soo qayb gashay halkan timid ciyaaryahanadii dadkiina soo dhaweeyay iyo Mr. Godax oo mar walba markaan ku animaano magaalada Helsinki nagu soo dhaweeya runtii aad ayaan ugu faraxsanahay wada shaqayntan dhexmartay Universal TV bahda sportiga ee London UK iyo dhalinyarada reer Helsinki barnaamijkan waxa soo qoray madaxa sportiga Universal TV Cabdiqaadir Maxamed Faarax Biriq oo imika ku sugan magaalada London waqti hore ayuu qoray waxa cameraman iyo editing kaas hore idinku sheegay Maxamed Muuse iyo Abukar intaan hawada ka bixin anigoo ah Cabdinaasir Ismaaciil waxaan idin leeyahay intaan wada kulmi doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ayayno